ريدن قبل كمان صوته مركو راح تقول سلام الإسلام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب شرف وين يا فرحض أنا سوكو بكريم بيروتي تاي عاو حلقة يا وين هذاكم يجبه ما هو صوته الله ينك كرامية وانت كراميسين يا ما شرفتين وانا شرفتين sida la sheegay kulay wadankii baan ka nimidnay inaan amradaan ka nimidnana kulay deyn bulshada aan isgaadho oo la iswaraysto waa mid meesha ku haboon koo waxaan ujeedada socdaalka koowaad waxay ahayd in maalintii farxadda badnayd ee Soomaaliland qarnimadii dib loo soo noqotay 18 May inay kala qayb galno runtii annagoo runtii waxay marka qorshaysnaa dad badan baa runtii qorshaysnaa laakiin safiisiyaasha ayaa dadka ku adkaaday inta badan aniguna si wanaag safaaradii Djibouti Mareykanka degdeg ay siisay waxay noqotay markaa qasab maalintii la siiyey maalintii ku xigtay inaan soo baxo si aan u soo gaari karo alxamdulilah ilaahay baa ku mahadle anigoo nabad inaan ku soo gaaray dabayaaqadiina adu maalintii u dambeysay inaan ka soo gaaray reer Minnesota maartay dibadda ku jira taas ujeedada ugu weyn bay ahayd wasiirkuna dee halkaa markaan wada joogno ayuu yidhi war hagala socotaano qaybta halkaa anagu waxaan u soconaa meesha lagu faraha badnaa Somaliland iyo Soomaaliya kale ku badnayd Minnesota ku soconaa isagu wuxuu yidhi annaguna caasimadaan teganaa saas isagu waqtiga isaga la taliyihiisu runtii iyagu ay waqti hore yimaadeen way kala qayb galeen way xafladii dhameeyeen hawlihii kala qarankay galeen annaguna dee gacmaha maanaan ku jirnaayo ummadaydu bay sidaa 7 cisha joogaayo tolkay iyo eelkii xigaalkii intii oo dhan iyo Soomaaliland oo dhan dee Soomaaliland tolkay wali waa Soomaaliland aniga Soomaaliland buu tol yaa salayso dhaweeyo aad ugu faraxsanahay maamuuskan iyo sharaftan maanta halka caawa ugu sameysana waa mid kale aad ka sii weyn haddana marka dalkii inaga warano kulli horta berigii hore dee warku aad buu qiimo badnaan jiro waqtiyadii aanan telefoonadan iyo miidiyahan jirin waa aad buu warku qiimaan jiray laakiin sida warkii wuxuu noqday maamahayna qaar baa imika dee aad moodaa inay imika la socdaan waxaa la oran jiray Soomaalida war la qaba xiisa male war la qaba xiisa male uu noqdo imika miidiyihii baa habeen saacad u soo dhacaya ogaad imika qof dadka qaarkiis ilaado ninbaa salaamaysaa ama qof dumar salaamaysaa waxaa odhanaysaa shalay ma wada joognay dee reerkii oo ay kala way fiican yihiin halayna soo hadleen baa lagu oranaya marka warkiiba xiise badan ma leh haddana kolley waa la socotiin waddankeena alxamdulilah waxaan doonaa isku qabno waqtiga doorashooyinka xasaasiyad badan bay nagu dhaliyaan waxaa laga aflagaado badan baa dhaca haddana waxyaabaha laynagu mucjisadaan ku noqonay Soomaalida aad laynagu majeertay waxa weeyaan maalinta doorashada soo taagto dadkii isiifayay ee iscaayay ee isku hanjabayay waa la waayaa waxay la yaabeen caalamkii noogu yimiday korjoogteynta doorashada oo dadkii bisha dhan iyo bilaha dhan iyo sanadka dhan isku hanjabayay kolkii iyagoo ay arkeen safkii ku wada jiraan kama dhacdo Afrika kale inta waxa la gaaray Afrika kale dad faashis la dhacaya marka ay noqdaan markay doorashadu taagan tahay in laba saf loo kala sameeyo laba qolo tartamaysa inaga waxa arkeen dadkii istaakuleeyo hebel baa weynaad u soco kii kala taakuleynaya alxamdulilah oo waliba kala qarsanayno anigu waxaan xisbeeblaayo adoonteeda odanaysa xisbeeblaayo la iska yani dimuqraadiyadan gaadhay la iskuma cunfi la iskuma qaado qofkan marka la dhaho ninka xisbeeblaayo kii kala ma cadhoonayo aniguna waxaan leeyahay waa xisbeeblaan codayna weli waa dimuqraadiyada yani waxaa laga yaabaa dee dunida hore u martay dhowr boqoloo sano maraysa inagana waa curdinoo 2002 iyo 2004 kaamika dee 22 sanadood bay doorashooyinkeenu taagan yihiin alxamdulilah markaa saad la socotiin dee isbedel baa ka dhacay dalkii xukuumadda kulmiye ee soo talinaysay 2 teeran oo 7 sanadooda dee waa qor isku dhiib Somaliland waxaa dee maanta la helay
kii shalay aan ka badinay 2017 oo wadaniga maanta helay qof ma jiro cidii maalinta timaado ma awalna anagana la shaqeynay maantana ku yimid ma la shaqeynaya nabadgu ma ka dalku wax dhibaato jira ma jirin walaalaheenii reer Sool intiina dhex martay wixii ka dhacay waa dawladda cusub daweynaysa oo maartay haday ciidan maleeshiyada abuurba tahay oo la qarameeyo wax weyn baa la qabtay durba muddada 4 bilooda hawl weyn baa runtii la qabtay oo waxaad gaadhaysay dadka siyaasiga dadka kale dadka madaxda dalka weey dareenka way ka horeeyaan dad kale haddaanan degdeg loo qarameynin ciidan maartay maleeshiyaadkaasi horta gobolka barweyna deynayba Soomaaliland oo dawlad garan kartaa jabhadihii dadkii hore dadkii waaweyn garan karayaan jabhada dhibteeda jabhada cid hay kartaa ma jirto dadanan sharciyo kala dambeeyo alla tabar qabin cid hay kartaa ma jirto waxa loo guuleystay horta marka maanta xitaa kuwa abuuray iyo mahadna qoyni warantal naga soo gaadhay waaba kadeedeen oo dhibaato badan iyo ku hayay taaway xukuumadda ku guuleysatay maanta in la sheego xogaa roobka iyo aad u yar sanadkan runtii oo gugi maanta wuxuu noqday wax aad u yar intii dambe Ilaahay baa ogtay saadaasha gaalada u waxay raadaan sanadkan roobku uu yaraanaya oo abaara jiliya laakiin say imika labadii bilood ee gugi naga dhamaaday imika hadda xagaabaan galay sida inaga cimiladeena labadii bilood xagaa galay labadii bilood gugi qaybtii hore runtii roobka aad buu yaraaday meesha ugu roobku 3 jeer helay meesha kale waa hal roob baa helay laba roob baa helay taa waxoogaa way jirtaa culays doonka ka dhacay Somaliland dawladda saameeya dadkii halka qurba jooga oo markaas abaari dhacdo si waxay dhig saameysaa qoys iyo si qaran labadaba oo wad garan karaysiin oga abaaruna in helaan da culays ku soo fuulayay oo ay war kale idin sheego oo heshaan waa mid baantii sida kale sida wadanku waa nabad guud waxaan u baahanahay dib Somaliland ay waa halka kafta badan ka dhacay runtii waxayna deeqayaa ama inagu wada filan ama wax ku noqonaynay waa magaca guud ee Somaliland xaafado yar iyo gobol wax ku noqon mayno nina xaafad iyo gobol wax kuma noqonayo bariga halkan ay midaanigu 2017 socodkii ugu badnaa maro shan state baan maro Somaliland halkan Mareykanka hal state u baaran community kala kulmino waxay New York afartii state kala waan ka hadlay oo iyada ay diimahayno bisha Abriil bariga waxaan kafto waxaan jiray warayna waday qolad ay reer meesha dhexda dagaalantay xiliyo xoolaba ku weyday haday noqonahay labadii reer darafada tanumana wada leenahay waa inuu ictiraafka inuu ku magac qaado aynu wada galno aad baa runtii loogu riyaaqay laakiin maanta qolada tolkeen hay'adda maartay reer Sool maanta qadar baa dhacayo sida uu dhacay lama dhahdeen waxa la yidhi lafisa u jabto uma kabanto soo jabta la ismaalaan si loo kabilaha ma laga hadlaa marka wixii dhacay maanta ku noqon mayno waxa dhacayo qadar keena weeyaan laakiin dantu waa kama rays baa socotada ilaahay bayna wada dhigo sida Afrikaba xuduuduhu kala jareen ee laba reer walaaliin mid walba laba wadan kale yihiin bay Somaliland iyo Soomaaliya tahay marka taawayna ka wada shaqeynaysa insha Allah reer Somaliland isku soo noqon lahayn in isku dhaantaana ma jirto inta reer Somaliland waa dad isku aba isku ehela isku abtiya in isku dhaantaay ma jirto runtii taa dadaalkeeda waa lagu jiraa xukuumaddu iyada ka garwada noqonaysa ragayga kale anagu ritaar garoomaanagii Cabdilaahi Cirayo odayaal qaran baan nooga daba fadhinaa anaguna taliyo tusaale dawladda waan joognaayo kama baxayno oo Somaliland inta nafta lagu jirto xilku kuma nahayn waxaan ku nahay noloshayna ku nahay marka hawsha xukuumaddu way u dabran tahay intii maartay oday iyo siyaasi cid u barina waa laga shaqeynaa waxay danteedu ku jirtaa midnimadeena iyo wada jirkeena dadka imka qaarkood u yar fikra in la qaybqaybtamo gobol gaar u baxay waxaan
imika inagoo somaliland yaan ahayn intaa yara gobolkaasi imika dhan inooga yar baxay dhibtu ka dhacday dhaqaala burburka iyo culayska ina saaray ma malayn karaysiin oo intii badan isku hadhay way u laangaraysay hawsha hadda intaa inagu dhacday intanoo sii kala tagtaana de waa waxba kaba jiraan sababta bini aadamku wuxuu wax ku yahay ama dhaqaaluhu iyo maanta maraykan waxaa fursadaha badan keenaya waa ummadaa badane dee iskugu imanaysa bableeshka intaa lagu yaan waa dad fikiray oo dadkii soo dhaweysanaya waxay og yihiin qof kastoo bini aadanoo kusoo kordha maraykan inuu kordhinayo un dhaqaalaha maraykan kordhinayo wax ku darayo maskax ula imanayo inaguna inagoo gebigeena arbaca nafara ayaa loo kuwii reer hebel baa meesha naga qaatay tuulo yaro gebeeda ku nool yihiin 200 qoys ayaa haddii ilaahay cid kaloo keenay loo dhigaa war kuwii reer hebel baa nagala baxay war kuwii reer hebel adayba kugu yimaadeenoo wadankiiba kugu camirayaanoo dhaqaalihiiba waa binaadan kusoo kordhay yani dadkeenu waa aragti gaabanoo qabyaalada dee la sheegay baa maanta inaga kolley meelo badan tallaabo hore qaadi lahayn meel kasana gaari lahayn intayda naga dhimane yani waxaa lanagu majeeranayo waa fiicannahay nabadgelyo dimuqraadiyad iyo dad istixgeliyo dad wadatashi maarata isku tanaasula intaasay naga dhimaneen inta halkaan tallaabada maanta dhignay tobanlaabkeed ku gaari lahayn waxay naga dhimo waa qabyaalad qabyaaladaasi dibadii gudo way taallaa markaa baasha inaan iska dhigno gebigeenu waxaa kuu taraysaa ma jirto baashi markay socoto waata ku odhanayso hebel isku fahma tiidina markaa kale iska daayo walaakiin waa dhashay bay tirada si uga socoto baashu hebel isku fahmanihi anagu markaa qabyaalad saas inan wax tar lahayno nabigeena alai sala slam yidhi waa wax xun ee ka tego nabi alai sala slam qabyaalada waxaa qolku xilka timaadana xafiiltankeenana sii yar jiitamayaana waxba inooma tarayo maxaa loo aruurnimadii xantaxantaysiga nagu yar fara badan in la isxantayso ana markay taabtadaas oo anigana iga dambeynin waxba xantaysigood gobol dhexdiisa ka jiraa qaheer qarab ka jiraa waxba xantaysigaasi nooma taraya qofku inuu xagga aan ka raacno maanta wanaagga iyo wadajirkeena ayuu sharafteena iyo karaabadeenu iyo nolosheenu kaxi tahay maalinta iyadoo khilaafi jirto waxaad yani dhibaato kugu dhacaysaa waxaad ka sheekeyn karta maayno qoyskaaga iyo qoyska kula jaarka haddaad 2 bilood colowdaan waxaad ku jiraysaa nolol yani kagan oo cidhiiriya markaa mar kastaba khilaafku in la yareeyo hadii dibadda jooga hadii guda la joogaba idinkana gaar ahaan waxaa idinku boorinayaa dee somaliland iska dayo magaca soomaaliyeed oo dhan iyo magaca islaamka oo dhan waad u baahan tihiinoo inaad waxwada qabsataan ood mujtamac weyn noqotaan oo istaageersada marka intii mi keliya haddaad sii kala qaadaan waxbayna tarmaysaan waxaa lahay waa inaan isku xidhnaantiinu farabaato kol kastaba waa nii ducaynaa waxaa de ilahay nin walba kasaan ku asturo idinkuna halkii ilahay nagu asturo carruurta maarta ini barakeeyo annagana dee abaaraha iyo waxaan maanta saadaasha le abaarta dee nooga soo duceeya idinku inta badan waa dhulku roobka iska badan yahay iska joogtaane afrikadu mayaad moodaane abaaro ku badan yihiin marka waxa weyaan runtii aada iyo aad bay qiimo weyn u leedahay istixgelinta iyo isdhowridda iyo is-ixtiraamku waxay kuu tari mooyin waxba kaama dhimayo wuxuu yidhi ogaas runtii haddana aad iyo aad qiimo badan ayuu yidhi waa runtii waxyaabaha qaarkood haddee dadku markuu wax wada leeyihiin in si saraaxiya loo wada hadlo waa mid meesha kol kasta ku jirta reer somaliland reer awdal hadduu qofku waxaan leeyahay dee waxaad leedahay haddana haddaad iska dhigto marti dee reer awdal marti ina iska dhigi horti way leeyihiin somaliland bay leeyihiin kolkaas soomaalia marti iskaga dhigaan ma taalo taariikh ay kuleeyihiinna waa taa dee maalintii ay dhibaata dhacday ee dagaal sokeeya dhacay gogashii halkii lagu dhisay halkii somaliland agaal loogu taagay dee waa borama oo shirweynihii labaadee somaliland ee kii burco ku xigay dee borama ka dhacay wuxuuna kii lagu dhisay ee dowladnimada kale ilaahay noogu fadhiisiyey ee alla naxariistay hogaamiyey nin weynaaye maxamed xaaji raacigal ilaahay maarata sabab nooga dhigay inuu qarankan dhidamada u taago
oo dhismihiisi dastuuru sameeyo intaan ku soconay waa intii in ay sameeyeen uma maanta ku soconaayeen dastuurkaasi yar oo deyntiisa badan weliba aan ka dhigno inta badan maxay kitaab la dadkii buugan ka dhigno oo mar walba siyaasiga iyo cid kastaabaad moodayna dastuurka wax badan laga aan sidiisa looga dhaqmin laakiin se inta kale ku kala soconaa maanta dimuqraadiyadda iyo war isku dhiibkaasi waa dastuurkii iyo seeskii wanaagsanaa ee hogaamiyaasheena hor dhiseen waana dee odayaasheenuna taariikh weyn bay ku leeyihiin oo waxyaabaan kaga duwanada kale dhaqankeenu wuxuu dhisay dib u heshiisiin inuu dadka hubka dhigidii dee inaguna saa isku tashi ayno Soomaaliya iska lahayd oo milyanada walaaliheen la gelinayo in la gelinin oo inagu isku tashanay iyaanu dowladnimadana ku dhisantay hubka lagu dhigo ciidan lagu abuuray waxaa isla markaa waxaad moodaa marka qaarkood inaanu maxaa dhaqaalaha la noo sii waayo malahaasi dhaqaalahaasi dib u bay nagala maqan yahay اعترافكم واحد وين معناتها صار شيء ويانو وسودو ياهي إن شاء الله وكو سودو ياهي تأديده معلم بحالة بسقطة حالة ما تجربة خليها الله قيمة هي معناتها هي ماشي لهي ندقي موقع أكون على إياه لبدا الشيء اللي نقوم بتشاريه الديمقراطية ده إياه دقناشها أو ما خلينا نعرفه ده الدقن ولكن سيا ده مارت الشيء جميل ولي لو استقي سنوات dagaalku ka dhaxay ka taagay yahay oo maalin walba dhimasho iyo qarax socdo halkana 12 habeenimo cid ka soo timaadaay ayna rumaysan karlayno bagan yaay loo yimaadaan aqoonyahanada reer galbeedku ninku waxa laga yaabaa in bil laba bilood la yiraahdaa tagin waa khatar sababtoo waxay nahaya harkaade hamar dhibaato ka taala ee nahayso Soomaaliya ma loo haysta magacii maalintuu yimaada buu arkaa difference-keena wadan degan oonan qordhex olin diyaarad ka soo degay Turkiga ahaa oo neer galaya sidaasoo hareer ugu xulaaway gaarigii escortkii ciidanka hawlguri la xamuulkii soo arkeen markaas adugu waxa uu jiraa soo fuul gaari ilaa uu sarkiisa soo gaadhay maasoo hotel la keenay hareeraha wuxuu arugu markaa hotelkii yimid habeen subaxii uu yiri xalay ma sifaa u saxday buu شلون درنا بابوك المكان مريم إنه قرحي من الموذي والسيد حمره قرحي لكن سواء كم مبسوط يقولي من بربري الله الجسر من القرية لما كان كويه عسكر القرية هيسطع لما تقول السومالة ما كان كجر تاعي ومد مجتمع إلى عشرة صار نصعطان من حكومة أول يكون قاعدين تولى كستيو يبقى قبل كستيو ما كستو نقالين إنه ما اسمين لكن الشعب الرئيس السومالة ولا كيس يقول نمديسو نكست إسقى عسكرية إسقى بوليسا أنا بحسنا أي المقاشاري والله كوفرت حيران والله صاحبه يجا كورين هذا مو كورينه ما حكى له بحبله ما حكى له صباح عبد الوارث وسيم غريبة جدا عندي معناتي وإحنا نبتدي نقول عليه قارحي كواد عيد كده بيسه رئيس المال ده جالس يتعين قف والبك باديها يا بوليسا هي كمجال اسكت أقل كأعطانا فرشة أما الله بتطلع لك كشة كيا كشة حافظة جار كارو سوارين نقرني نكوي بدار الله ماشي سجله والخير نقول بيه والله ما قرأنا وعن قرأه معلومة كمدة قول سريشكا قلت اللي بحل قلبي خير أيام بيجروا يتولدكم وأنا إلى يرحل الصريح tuulada uu maraa wuxuu ka qaataa busudkeena awooladkiya iyo biyo ka qaataa wax kale ma weydiiyo way isku tilmaameen tiiba ilaa halkii qaranka uu sareeyay soo gaadhay oo la yiri nin baa ka soo bilaabay Cabduqaadir oo ilaa iyo bari u socda haye tuulo kastu joogsadada ninka waa garlaanahay wuxuu qaadanayaa bidhaadeen buskud iyo biyo mu qaadanaya yaani waxa la wargaray ciidanka oo dhan la wargaray waxa wax soo sheegay oo reer baadiyi waa ka telefoonka u dhaafay uu qad meel bal la jooga sida halkaan maanta ka maraya war maartay ninkaas ha uu soo maranayo saas u yahay dowladda baa war noqotay waxa lagu bulaxaal markuu maraya la qabtay ninka wuxuu noqday xanuunsan jimidka yimdo maskaxda ka xanuunsanay yani waa halka dadkeenu ay sida awoor ku yihiin security ilaalinaya ma inaga yar wajeeda marka waxaan shacabka reesho badna runtii
isagaa lexjeclada dalkani iyo dadkaba ilaashanaya taasuu baan ugu baahnay inteerayna culayska nagu haysa qabyaaladana tordho ka dhigno haddaan noqono more integrated oon isku sii xidhnaano waxaa laga yaabaa wax badan oo naga wakti badan naga qaadanaya deg deg buu inoogu imanaya marka wax ku gabagabeynaya halkayga waxa ilaahay baa yidhi wactasimu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu ilaahayna abuuray baa yidhi ba xadhiggaa kaliya qabsado midnimo ahaada oo ha isqaybinina intaa haddaynu qaadanoon waxaad laynagu dardaaraya inaad midnimada aada xoojisaan safiiradii dee somaliland dibadda joogana aada noqotaanoo markaad dhanka eegto dimuqraadiyaddii baa nayar dadkii nayar qaybisay berigii hore intaan dimuqraadiyadda la gaadhi shirarka beelaha qabsanayni dee somaliland wada aqoonyahankiisu dhan buu wada shaqaynayay waa kii wada ictilaaf wada raadinayay marka waxa weeye tana waa guul baynu gaadho dimuqraadiyadda waxba inaynu waxna tarta hayadayna wax naga dhinto maaha laakiinse waa inaan garanno dimuqraadiyaddu maalinba ninkii alloo qurun bay keenaysaa haddaad jeceshahay nin iyo haddaad neceb tahayba ku kala tartamo dee 4 qof oo oroday midubaa badinaya marka waxaynu u baahnay inaan taa fahamno cunfi aynaan ka dhigin oo dee doorashadu dunida horumarta la joogtaan waa idinka arkayo markii maanta o dhan wax kasta la markay baasho dhamaato si fiican ba lasku salaamaa dee waa la isku hambaleeya taasaynu inagu in yar bay nooga dhima intaana in yar bay nooga dhima inta waynu gaadhinaye laakiinse qolada dibaddu iyaguna wax taadan qabyaaladdu waxay taalla xagga qolaba qole eegtaa qolada gudaha jirta waxaa baasho xagga dibadda ee ka timaadaa de waxay isnaanaa war qolada dibaddu wanaagga faraha badan nolosha la gaadhay ee dimuqraadiyadda iyo isxaaq dhowrka iyo humanity-ga de inta wanaagsan noo soo gudbiya oo inta xuna naga daayo halkaa wixii la isku haysto ha ka qeyb noqonin oo ina ku bixisaan anaa ree hebela iyo ree hebel la dagaalamaya waxaa ku bixininaye inta wanaagsan inaad halka ku barateen usoo gudbiyaan leenahay idinkana allah maarata halayna barakeeyo halkiina allah inagu asturo oo idin duceynayna anaga noo soo duceeya asalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad u mahadsan yahay madaxweyne ku-xigeenka hore somaliland madaxweyne waad noo joogi doontaa waxaa bilado ku guddoonsiin doona wasiir cadaani iyo mas-uuliyiinta kale inta kalena waxaan xasuusinaya dadka goobta fadhiya hodan cabdiraxmaan fanaanadii weyneyd iyo waxay noo joogtaa fanaanadii kale weyneyd malyoon maanka waxaan jecelahay fanaaniintu waxay u yimaadeen inay madaxweyne ku-xigeenka ay soo dhaweeyaan sidoo kale cashadii oo madaxweyne ku-xigeenku inoo furi doono ayaan jecelahay ka horse waxaan kusoo dhaweynayaa wasiir cadaani iyo cabdishakuur oo iyagu ayaad mahadsantihiin mar kale kasoo qaybgalka iyo samirka badan baa caawa aad baan markale joognana wasiir cabdullaahi cismaan saxaabiyad cadaani waxa uu guddoonsiin doonaa sharaf ah lifetime achievement award oo guddoonsiin doono madaxweyne ku-xigeenkeena waa jamhuuriyadda somaliland cabdiraxmaan ismaaciil sayrici intaanan shahaadada u gelin waxay dhaaween walaalkay cabdiraxmaan kaahin afrodani waana taajirkeena jamada markaa shawaarmada ma cuni maayo meeshiisa markaa tago haddaanan sheegin hawshu halkan ka qaatay waxaan kaloo doonaya inaan kelmadii raaciyo oo intaan shahaadada u gelin daqa carab iyo ciise iyo cabdiraxmaan iyo group baa galabta halkan ku sheekaysanayay waxaa jira baa la yidhi madaxweyne muuqaal viral noqday somaliland oo madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro markuu jabuuti kasoo noqday oo diyaaradda kasoo degay roob baa daayeergeysa dabadeedna waxaa lala soo cararay dalaayad dee loo qabto ma garanaysaa hadda askartiina ma fahamtid de waa roobkii uu ku daayay dabeedna cabdiraxmaan uu iska saas isaga tiro wuxuu yidhi maya xeliya yani wuxuu tusay inuu ummadda la dareeyahay iyo waxaas waa wax yar laakiin wax weynina tusaysa madaxweyne shahaadadan somaliland community waxay leedahay waa lifetime achievement award presented by the Somali community of Minnesota, presented to His Excellency Abdurrahman Abdullahi Ismail Sayyid in recognition of your historic service
Somaliland, visionary leadership, and lasting impact on Somaliland's democratic progress and national pride. May 2025. sidoo kale waxaa raacaysaa shahaado sharaf labaad oo ay guddoonsiinayaan ururka aqoonyahanka iyo ganacsatada reer Somaliland, Somaliland Professionals and Business Forum oo guddoonsiin doono Yusuf Cali. Group K professionals, please come to the stage. This is in recognition of your service, in recognition of your principle and hard work for the nation of Somaliland and to the prosper of the nation and also for the coming generations. We appreciate your service and all the good work you have done. Thank you. speakers badan oo dalkii inuu ka yimaado jooga marka insha Allah sawirkaynu badino xoogaa kala axmad wali oo ka sii dhaman waxaan yeerayaa Cabdiraxmaan